بسم الله الرحمن الرحيم. هل كان برنامجنا هذا ركتان أو وين وحن قلنا نمت إن موجنا شعورتنا أو كأدن الرميه كذا عي كمبلا. أنا هل كان وحقولنا من إن معارض كنا أن كسر جدنا وأن ذي كذا عي كمبلا. حساها معارض كمني أنا الدولة دولة بين يدعضه أما الدولة دولة بين لخربه أو الدولة أهان إن نقولنا شريفكو مدد للدورتين إلى هذا التان كده قال لما أي نمن كدالك كسر دولي أو خوارجته إلى ما أنت الدجال كذا كواي أدو حنو بحمها الدجال كذا لله هاي ما أنت إن محيط هكذا أوجله هكذا كانوا حقليه وخلاف كدعي أوجي annaga raalli waxaan ka nahay inay soo wada shaqeeyaan farmaajo iyo shariifka sidii ay wada shaqeyn jireen inay wada shaqeeyaan wax allaala wixii ka soo horjeedo oo arintaas ay tood carqaladaynaya annaga waa ka soo horjeedna shacabku way muujiyeen dareenkoodii laakiin waa in la ogaadaa haddaan mudaharaadkan iyo waxaan aan sii wadno inay shabaabka guuleysanayaan inay meeshooda ku soo noqonayaan inay meelihii laga saaro ay ku soo noqonayaan marka mudaharaadka faraha badan maadaama annaga aan muujinay inaan hadeertan aan joojino loo jeesto dalka nimanka qaribaya loo jeesto nimanka khawaarijta annaga shariifku waxaan leenahay go'aanadii oo ka dhacay Kampala waa in annaga waxa ka soo horjeednaa waxaan leenahay in la taageero in la wada shaqeeyo oo baarlamaanka loo muujiyo inay wada shaqeynta shariifka iyo ra'iisul wasaaraha wax weyn ay tahay khawaarijta dalka qabsaday nimanka kaliya oo ka saaray inay yihiin heshiiska ma ka noqonayo shariif mase marka heshiiskaas waxa loo bandhigayaa oo loo bandhigaa nimanka baarlamaankan waa inay wax isku falaan ee shacabka damiirkooda ay fiiriyaan shacabka waxay rabaan ay fiiriyaan ulajeedada shacabka ay fiiriyaan ulajeedada dagaalka socda inay fiiriyaan baarlamaanka waa inuu soo noqon caado qaadato oo dalka dhan baabi'inaya muddadii aan soo aragnay baarlamaanka ilaa hadeertan khilaaf uu ka bixi lahayd khilaafku waa inuu joojiyo dagaal baa nagu socota dhibaato nagu socota marka waa in la joojiyaa alxamdulillaah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah meeshaan waxaan u nimid maanta inaan muujinno shucuurta dadkan ay qabaan reer Norway gaar ahaan Oslo oo weliba haddana ururka jiiteen banaanbaxeen wuxuu ku saabsan yahay inaan muujinno inaan ka soo horjeedno shirkii Kampala oo aan u aragnay inuu ahay wax lagu khiyaanayo qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed maxaa yeelay waad arkaysaan rabitaanka dadka waxay muujiyeen inay ka soo horjeedaan dhammaantooda sababtay uga soo horjeedaanna waa shirkaas oo ujeeddada laga lahaa ay ahayd mid guracan oo ummaddeena isa qaadan karin dadna aysan ugu jirin waxaan si gaar oo la hadlaynaa madaxweynaha Soomaaliya inay kama soo horjeedno waxaan ahayn dadkii 7 sano la soo dhaaf taageeray oo garab taagnaay ilaa berigii maxaakiimta sababtaas ayaan mataqaanaa u taageertan laakiin hadda waxaan u aragnaa madaxweynuhu inuu galay qalad muxuu ahay ay hogaaminayaan mahiiga iyo beesha caalamka taasaan uga soo horjeednaa mana aqbalayno mana yeelayno waxaan ka codsanaynaa in uu u dhagan nuglaado rabitaanka shacabka Soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan uga mudaharaadaya si ay u tusiyaan wanaagooda waxa uu ku jiro iyo xumaantooda meesha ku jirto sidaa daraadeed baarlamaanka Soomaaliya iyagana waxaan leenahay baarlamaanka Soomaaliya waa inaad ka fakartaan ummaddiina iyo mustaqbalka ay leedahay waa inaad u xelanina dana gaar ah oo adinka aad leedihiin waa inaad muujisiin wadaniyad iyo maxuu ahaay iyo dadnimo maanta la idin baahan yahay inta ka hor waxa la idin dhihi jiray waxa waa nimo meel iska fadhiya waxaan rajaynaynaa in sidii bariga badda Soomaaliya loo khiyaanayo oo kale uga hortimideen maanta inaad uga hortimaadiin barnaamijka Kampala ka dhacay oo aragno mid khatarteeda leh oo u baahan inaad wax ka qabatiin waan leedahay sugayaa waxaan rajaynaynaa inaad mataqaanaa aad wax ka qaban doontaan billaah tawfiiq waxaan ku weydiinayaa ii sheeg maadaama heshiiska la saxiixay heshiis walba oo hadda dawladda la soo hordhigo haddii iska saxiixaan ayagoo ka fiirsanin caqabad keena ayagoo ka fiirsanin soo dhibaato kuma aha waa dhibaato heshiis kasta oo dawladda la soo hordhigo waa inay ka tashadaan go'aan laguna salay axdiga ku meelgaarka dawladda u samaysan haddii axdiga aan lagu salaynin oo ninka rabitaankiisa oo ku fakaro waxaa imaanaysa wax hadda dhacay oo kaleeto sharci ma ahan waxaan baarlamaanka la horgeyn waxaan dawladdu ka tashan in 2 iyo 3 qodob meel intay isugu tagaan laga saxiixo warqad aan ummadda dan ugu jirin oo sharciga iyo loo fiirin axdiga ku meelgaarka waxaan leenahay waa baadil waa ka soo horjeednaa waana in baarlamaanka Soomaaliya oo saxaa qaladaadka meeshaas ka jira maanta waxaan dareemayaa dhibaatada xildhibaanada
oo xaaraan cunka ah oo Soomaalida maalin walba edabdarrada iyo dimandaabada ku wadaan allaha dhulka la gadayo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bal aragtidaada aad noo soo qoro anigoo ku hadlaya magaca gabdhaha Soomaaliyeed ee qurba joogta ah waxaan fikradayda ku jeedinayaa ama aan ka afmayaa gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waxaanu mucaarad ku nahay shirkii ka dhacay Kampala oo uu ku aadanaa maxaan ku iraahdaa kala qaybinta jajabka Soomaaliya iyo maxaan ku iraahdaa horumar la'aanta waxaanu aaminsanahay Soomaaliya inay maanta mid tahay qabiil in laga baxay in kasta oo maxaan ku iraahdaa walidii haddana cagajid uu nagu jiro madaxweynaha baaqa aan u jeedinayo waxa waaye shacbiga wuu baaba'ay maanta Soomaaliya marka aan ka hadalno golaha baarlamaanka ayaan u jeedinayaa baaqan golaha baarlamaanka idil beel kasta ay yihiin boobaha iyo Burundi aad ka buuxiseen wixii ay biinayaan wayba sii badshaan butulin nin yar iyo buteeraan lagu ogeyn Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha israacdo beesha caalamkana waxaanu leenahay annaga dawlad saada lehnahay dawlad xor ahnahay dawlad calankeeda iyo wixii wadatanahay marka in naloo tixgeliyo oo naloo tixgeliyo go'aanadeena annaga inaan leenahay wixii anfacay annaga waan naqaan wixii maxaytad aan anfacin waan naqaan waa inay natixgeliyaan waa inaysan faragelinta iyo barasharka faraha badan iyo oo dhibaatadaas oo in noo fiirnaa dawladda xor inaan nahay inaysan dhinsaan iyo saan yeela banaanbaxa oo ummadda Soomaaliyeed ay u wada dhantahay baan meeshan ka filahayay laakiin ma arko ummad Soomaaliyeed banaanbaxa ay u wada dhantahay waxa aan u banaanbaxayno oo danahayaga iyo hawsheeda u soo burburinayna waxa weeye dhibaatada waddankanagi ka jirta maamul xumada ka jirta dawlad la'aanta ka jirta ummadana baaba'aysa inaan taa ka wada midaysanahay baanan u maleynayna markaan soo wada banaanbaxayno oo halkaan imaanayno hawlahayaga soo bareen afartaas Soomaaliyeed oo halka iskugu timidna ma degana Norway ummad ka badan baa degan laga yaabaa in roobka dadka joojiyo roobka والله الرابك أنا قبل وان كصبح نكيد دنينا ينا وصبح لها لكن وحنا عمسنا هاي ما الحماة إنه يشتو إنه نشرا كلا تبي مارتا برنامج ما أنت حلقة على برنامج لها ويا وأول الضبنين وأول تجنين لما هو يبان السوق يبرنامج عن إنه برنامج isaga hadalkii badaa